Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo si rasmi ah booqasho ugu yimid wadanka Britain magaala madaxdiisa London. Ra'iisul Wasaaraha socdaalkiisii waxaa ku weheliyay wasiirka gaashaandhigga, wasiirka warfaafinta, taliyaha ciidanka afhayeenka, xukuumadda iyo waliba xubno kaleeto oo kala duwan. Waxaa meeshaas ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha jaaliyadda Soomaaliyeed iyagu ku dhaqan wadanka Britain qaasatan magaala madaxda London iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Markii ay soo gaareen ay noogu yimaadeen goobtii ay ku sugaysay saxaafadda Soomaaliya ayaa warbixin kooban waxaana siiyay wasiirka warfaafinta Mudane Mustafa Duxulow. Alxamdulillaah aad aan faraxsanahay runtii caawin halkan nimaado waa dareemi karaa dadka runtii sida noo soo dhaweeyeen Soomaalida waliba dadkan magaalada London ku sugan dalka UK aad aan faraxsanahay dareenkeena runtii lama qiyaas karo. waftigan waxaa hogaaminaya ra'iisul wasaaraha iyo waxaa ku jira wasiirka gaashaandhigga iyo aniga iyo saraakiil ka socota ciidamada qalabka sida dhanka xooga dalka runtii aad aan faraxsanahay farxadan lama qiyaas karo. dhowr maalmood waa joogi doonaa haddii la yiraahdo kulan ballaaran waa jiriya laakiin kulamo kale oo community-ga la geli doono insha Allah tacaala waa jiraan oo magaalada London iyo Birmingham laakiin barnaamijka faahfaahsan insha Allah berito waxaan sii doonaa ra'iisul wasaaraha haddii la yiraahdo. dhanka kale isaguna waxaa si baahsan oo dheelitiran noogu siiyay warbixin kooban afhayeenka xukuumadda Mudane Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isla markaas isaguna goobta ku sugnaa. Ridwaan wax yar waxaad u taabataa telefishinka qaranka socdaalkiina iyo sidoo ku saabsanaa. Faaduma ma santahay runtii socdaalkan waa safar shaqo oo ra'iisul wasaaruhu halkan ku joogi doono muddo 7 ah. inta uu joogo waxa uu ka qayb gali doonaa shir amniga loogu talagalay oo ahmiyadiisa runtii halkan u yimid gaar ahaan arrimaha ciidanka tababarkooda iyo tayeyntooda iyo sidii amniga Soomaaliya ay dawladda Britain gacan weyn uga geysan lahayd. waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu inta uu joogo uu la kulmi doonaa madaxda kala duwan ee dalkan. waxa uu ka hadli doonaa macadka ama hay'adda cilmi baarista ee Chatham House oo Soomaaliya iyo mustaqbalkeeda iyo waxa ay higsanayso oo aad iyo aad maaragtay uga faalan doono. waxa kale oo iyana jiri doonta safar uu ku tagi doono hadduu Ilaahay idmo dalka Norway oo madaxda dalkaas uu kula kulmi doono. jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada tan London iyo Birmingham iyo Oslo iyana waa ula kulmi doonaa hadduu Ilaahay idmo. haddii Ilaahay ka raali noqdo dhanka kaleeto waxaad ugu tala gasheen ma jirtaa reer London qaasatan si gooniya inaad u aragtaan mise Birmingham iyo London hal mar ayaad wada arki doontaan. kulamo gaargaar oo ra'iisul wasaaruhu la yeelan doonaa hadduu Ilaahay idmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee London iyo kuwa Birmingham laakiin maalmaha soo socda berito oo kale waxa uu ka qayb gali doonaa xaflad weyn oo Birmingham ka dhacaysa khamiista hadduu Ilaahay idmana halkan waxa ka dhici doonta xaflad weyn oo jaaliyadda Soomaalida uu kula kulmi doono. waa tahay wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha yaa ka mid ah wafdiga waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga wasiirka warfaafinta taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed xubno kale oo ka socda hay'adaha dalka iyo la taliyayaal dhinaca ammaanka ah oo maaragtay safarka ku weheliyay ra'iisul wasaaraha. Faaduma Faande telefishinka qaranka SNTV London.